salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaantiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aynu kaga hadlayno 6 qodob kuwaas oo qofka ku noqon kara kuwa dhaawici kara mustaqbalkiisa. Qodobadan ayaana ah kuwa aan uga leenahay in uu qofku isaga bedelo noloshiisa wax uun. Kow, cabashada badan. Waxaa laga yaabaa in aad raaxo ku dareemayso marka aad sheeganayso cabashadaada, hase ahaatee taasi ma ahan xalka, laakiinse xalku waxa uu ku jiraa in aad eegto dhibaatada halka ay ka timid iyo sidoo kale sida looga gudbi karo. Isku dirka dadka waa qodobka labaad. Dadka qaar ayaa leh habdhaqankan oo ay la tagaan goobaha shaqada waa khatar laga dhaxli karo natiijo aan wanaagsanayn. Waxa ay saameyn kartaa mustaqbalka qofka. 3, qoomamada qofka. Waxaa lagu tirin karaa qoomamada xaalad maskaxeed oo aan wanaagsanayn iyada oo la xiriirta qaladaadkii hore ee qofka uu galay. Qoomamada ayaana qofka ka mashquulin karta waxa uu maanta samayn lahaa isla markaana u furan. 4, naftaada oo aad la barbardhigto qof kale. Haddii aad leedahay habdhaqankan, waxaa qasab ah in aad joojiso, waliba waqtiga ugu dhow. Dunida maanta qof kasta ayaa la nool caqabadiisa gaarka ah, waxaana mashquul kugu filan in aad yoolkaada gaarto. 5, qancinta dadka. Tacaamulka wanaagsan iyo qancinta saaxiibadaada waa muhiim, laakiin tani kama dhigna in aad raalli geliso qof kasta. Qancinta dadka waa yool aan la gaari karin. 6, eedaynta. In aad eedayso naftaada ama dad kale labadaba ma habboona. Ka fogow dhaqankan si gaar ah marka aad joogto goobtaada shaqada.